عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر يوتيوب channel كنا وأنا فاتوش channel كان نقول سعتوا كوينتوش official هذا نقول سبتاي نقول صبير سبسكرايب صار channel كا هذا هو لو شفت لايك شير كومنت حفيلة يا إن سوا عفمال قمنا إذا كانوا عفمال قبتين ما أنت برنامج عصبة وذا وراسة إذا كل شيء وحارة إن برنامج وعي قلين أما وإحنا نقفل إذا كرتين إن شاء الله إن أسكت دينا وحيدي سو قرنا إذا آخرنا دو إلهي هذا إذا سو شيء دينا marka maanta barnaamij baan wadaa ah طبعا qof kasta uu rabaa samaha inuu bulshada dhexdeeda la jeclaado oo qof wanaagsan oo samahan marka waxa rabaa inaa xogaa dhowr shay idinka sheego waxyaalaha muhiimka u ah asaasiga u ah qofka dadka dhexdooda haduu jacayl rabo inuu kasbado looga baahan yahay inuu sameeyo marka insha Allah ani maxaa la oran jiray waa soo qortay marka halkan aan ku soo diyaarsaday marka insha Allah waxa rajeynayaa inaa wax naga faa'iido doontiin haduu Ilaahay yiraahdo marka casharkan oo bilaabanaya insha Allah marka ugu horeysa waxana muhiim ah qofka inaad sid oo tixgelin dabcan qof kasta uu rabo Soomaaliya in la ixtiraamo oo si fiican loola hadlo oo la xushmeeyo Soomahan marka hadaa rabtid inaad noqotid qof wanaagsan qof la jecel yahay waxa muhiim ah inaad tahay qof tixgelin badan Soomahan tixgelintuna dabcan iyo qofka inaad xushmeysidna waa aad في عندي كل أنا أهان وحنجعله قفك إنه يحشمه حتى مركو حشة قفك حنجعله نصدق كم وحي وشيء كسو تاسع أساسه عندي كرنا دتك أول فرنو وحنقطع قف مركز تسكفر فرن قف مركز تسكفر أحسن حالتك تسكقصل طبعا ما شرط قف مركز تسمعي حالتك تقصلي أو فرحسن بالآذن بقى هاي بالآذن يمرقنا ويوضع الشان marka Ilaahay wixii murugaha naga hayo laakiin waxa la rabaa dadka marka ku dhex jirto inaad tahay qof qosol badan inaad tahay qof farxaan alla iskama rabo inaad macna daraska iyo qosashid laakiin sida diinta islaamku noo sheegto qosolka iyo dhool cadeynta waa sunna weeyaan waana wax aad u wanaagsan waxaad wanaagna ku yeelay Ilaahay hortiisa dadka hortiisa marka inaad samaysid waa laga maarmaan samaan so number 3 waxa dhihi karaa waxa waaye dadka ina ugu yeedid magacyo wanaagsan طبعا dadka waxa jira samaan qaar naanas iska la xun ama naanas marka loo bixiyo laakiin macna gaar ah turjumisa marka dadka inaas ugu yeedid maaha qofka bil aadanka diintana way noo sheegtay qofka magac uusan u dhibsanayo hadaa ugu yeedid waa dambi samahan ma fiicna waana karaahiyo qofka muslimka ah ee walaalka ah waxa ugu yeedhaa magaciis uu ku faraxsan yahay damaanta aniga hadaa magacayga ku faraxsaneen waxa waada igu yeedid dibba aniga ahaanteedina ma farxayo oo de murug ba igelinaysa ilaahay agtiisana de wanaag ma geyso qof islaama dhibta samahan dhibaatada qofka inaad gacan tagtid bas maaha waa wax kasta qofku uu diiday inaad ku samaysid waa dhibaato saas xaay marka waxaan leeyahay isugu waca magacyada fiican magacyada wanaagsan wasaas so number 4 waxa dhihi karaa waxa noqotaa dhageysto fiican hadda maanta marka laba qof aad meel wada joogtaan qofka ku sheekeynay hadaa inta ugu sheekeen saas tiraahid hay ma waxa waay qofkan kale niyad jab ku ridaysaa marka waxa noqotaa qof markuu ku sheekeeyo qof attention leh concentration ma dhaha ina qofkaas concentration yeelto oo waxan qofka ka hadlay aad ahmiyad gaarsiisid aad dhageystid weeyaan sameeyeen garaneen marka qofka markuu kula hadlayo iska mashquulin telefoon ha ku mashquulin TV ha ku mashquulin wax kale ha ku mashquulin qofka kula hadlaya si ahmiyada qofkaas si dareemkaaga oo dhan so number 5 ba mareynaa ma rabo inaa wax badan sheego waxa rabaa in yar oo aad maskaxda ku haysan karto oo ku anfacaya inaan ku sheego ma rabo inaan 100 xaba hadda ku sheego 100 ka meesha ka kacdo waxa rabaa in yar oo wax ka faa'iido insha Allah waan isku dayay duuleeraa shan يا هذا تهقف خلدان هذا طبعا هذا dadka markay isku dhacaan waa khalad wanaga dhaca samahan bil aadan ba khaladka una hay that's why pencil has a rubber baydahan dadka cadaanka ah hada ingiriiska ku turtay waa mahmaah pencil rabada wuxuu u leeyahay mistirtiraha waa in bil aadanka waxa looga sameeyay khalad galayaan soo khaladka la ogaa inay galisid wixii lagu tirtir lahaana waa lagu soo raacay marka that means bil aadanka khaladka way wada dhashan waana masdwana khaldamayna laakiin marka khaldantid ha noqon qof isla weyn ha noqon qof khaladkiisa iskala weyn qof baa ka khaldant samahan qofkii raali gali khaladkaaga qiro waxaas walaalka sameey aadna ugu xumay iga raal ku dheh طبعا waxba intaas kuma yeelan samahan waana wax khayr badan
دينت الإسلام كنا واحد هذا قف كتشديس كبدنا هذا الأسبوع ناقصني أعماش وناقصن دم إلهي سبحانه وتعالى ما بقات سمعا هل كسر يقتل خلت كنا قرطة لما أنت نسعى فيها هذا إن شاء الله قف أسبوع ناقصن تندود شرو أما قف اليد وحي رجيس دود شرو عاوة تلفن كسجراع وحد هذا ولا يقرأ النقو ساس كاسمي عاد بنكورها لك إن خلت كنا بالآذان بانوا إسرائيل قليل إسنع فيه إن شاء الله waxaan ku kale ku sheegi rabay ixtiraam fikirka qofka kale طبعا dad waxaa jira badan oo markay iyagu fikir la yimaadaan bas jecel fikirkooda la qiimeeyo in fikirkooda la tixgeliyo qofka walaalkiis fikirkiisa oo arkay baaba soo ha noqonin qofkaas oo kale qofka walaalka xaasid ha ku noqonin qofka walaalka dhageyso fikirku ku keeno ka qaado maxaa la dhihi jiray ka keentina soo kaga qaato laakiin dad tray aniga kayga un baa soconay kan qofkan dhanaanba male waxa weeye wax selfish baa noqonaysaa iyo qof naftiisa kaliya wax la jecel marka insha Allah qofka walaalka ahna waxa u sameeysaa fikirkiisa tixgeli hadduu xun yahay xataa tixgeli laakiin u sheeg waxa ku tirada walaal markaa dhageysatid walaal macaan saan ku khaldan yahay halkan buu daliil ka leeyahay si uu aragtaa سو قفك مركز سوى wanaagsan khaladkiisa u tusid uu qaadanaya Soomaaliya mid saddexaad waxa waaye qof hada aragti khaldan isla joogtiin mid kale oo meel wada joogtiin public ah qofkii khalad markuu galo markii baa dhihin Allah maxaa saa u sameysay dadkii arkaya waxa waaye qofkaas niyadiisa waa ka jabinaysaa mana fiicna dhaqan ahaan iyo reer magaalnimada saas ma fiicna qofka hada khalad ku aragti u aamus marka meel nadiif isla tagtaan qofka khaladkiisa tusoo waxa tiraada heblaya ama hebel oo saasa sameysay ولا وحاس مرت باسمين طبعا قفك اسنا وكجعلانيا يا والله انا هرت انا اهان قفك wax ii sheega iyo qofka khaladkayga tusiyo adduunka ugu jeclaa ma fahanteen marka qofka khaladkaaga ku tusiyo qof xun ha u arkin oo qof wanaagsan waxa la yiri wax ku siiya wax badan baa aragta wax ku sheega si wax yar baa aragta marka waa macnaheedu waxa weeye dad maanta aad gur kasta tago koob shaahi iyo bariis iyo baasto la siina samaan laakiin waxa laga yaabaa khaladka ku jira inay ugu egtaan qof ku jecel qof wanaagaaga bis khaladkaaga ku sheega marka qofkii hada khaladkaaga ku sheegay dadka ka jeclow qofkaas dadka ka tixgeli dadkana ka ogow insha Allah maanta inta soo soo diyaariyay haduu ilaahay yiraahdo 10kan inta kuma ekaan doono barnaamijyo badan buu yeelan doona topic badan buu yeelan doona haduu ilaahay yiraahdo shaamuul lawadana waa idin la wadaagayna haduu rabbi idmo marka insha Allah 10 kan ku xigana shaamuul idin soo jeedin doonto haduu ilaahay yiraahdo waxa rajeynayaa in ay iga hesheen hadda iga hesheen insha Allah like comment hadda jeceshahay wax aad isleedahay